balwoy waxay belayay mooyaanay beergaal iyo boyga looranisay waxaa ibelayay balbalay laylay 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 lalalalaylay mulcawalay ku dheeraayay kii cabdisilimo iyo qadjabalwo labadii boqor ayaa niga waramaya cabdi deeqsi warfaa ayaa magaciisa loo oran jiray cabdisilimo aniga cumar baa la cumar deeqsi warfaa baa cabdisilimo walaalkaygu alinka cabdi deeqsi qayr baxshiyo adi jabalwa qayri tirayo caada u lahaa tin dheer buu lahaa cabdisilimo deeqsi markuu xalifay tinkaasu soo qaban jiray timaamada xayga taanu jecele kulanti wacan oo wanaagsan idaylahaantiinba daawadayaal halkani waa telefishinka madaxa bannaan ee raya t v kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doonno bilowgii balwada fanka iyo suugaanta casriga ah ee Soomaaliyeed barnaamijka waxa si wada jir ah idinku soo saaray isla mar ahaantaasina halkan idinkala wada socodsiin doona waa anigoo Ibraahim Cabdillaahi Ibraahim Suxufiya iyo saaxiibkay Axmed Diiriye Ciiltire laylay 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 lalalalaylay mulcawalay ku dheeraayay sida aynu inteena badanba aragnay sanadihii ugu dambeeyay waxa si weyn soo ifbaxayay fanaaniin Soomaaliyeed iyo suugaan tiro badan oo iskugu jirta heeso gabayo iyo noocyada kale ee maasooyinka waxana warbaahinta baraha bulshada internetka si weyn u qarqiyay heesaha aan hakad ka lahayn iyo fanaaniinta faraha badan ee samankan sida weyn iskaga daba dhacay marka laga yimaado heesaha ku salaysan ciyaar dhaqameedka ay ka midka yihiin sayliciga daatada wiilwiilaha batarka iyo kuwo kale oo badan waxa la aaminsan yahay inaanay jirin heesaha casriga ah ee maanta sida xooggan loo dhagaysto ama loo daawado wixii ka horreeyay xilligii ay soo ifbaxday kooxdii Balwa Band oo ahayd kooxdii ugu horreysay ee bilowday heesaha noocani oo kale ah waxaana laga yaabaa in badan oo kamid ah boqolaalka fanaan ee Soomaaliyeed ee ka soo heesa daafaha caalamka ayna wali isweydiin sheekadan iyo halkii ay ka soo ifbaxday haddaba ma taqaanaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaalida u heesa marka laga yimaado ciyaarahaasi dhaqanka waxse ma ka og tahay kooxdii ugu horreysay ee isku abaabusha qaab faneed ee la yimaada suugaanta casriga ah iyo weliba heesaha cusub ee waqti xaadirka socda cabdi deeqsi warfaa cabdisinimo wuxuu ahaa fanaan heesa hal abuur la xamiistay abwaan muusigyahan aad loogu aqoonsaday horumarinta fanka Soomaalida waqti ayna dadku aqoon badan u lahayn fanka iyo suugaanta Soomaalida cabdi deeqsi warfaa oo loo yaqaanay cabdisilimo waxa uu ku dhashay tuulada Jaara Horato oo 25 mayl dhinaca bari ka xigta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal qiyaastii markii ay taariikhdu ahayd sanadkii 1920 sida ay noo sharaxayaan aqoon-yahan Bashiir Sheekh Cumar Good iyo abwaan Maxamuud Cabdillaahi Geesteer cabdisilimo wuxuu ku dhashay Jaara Horato oo ah bariga Boorama cabdi deeqsi warfaa ayaa magaciisa loo oran jiray cabdisilimo wuxuu dhashay magaranaysa bilowgii 20-nadii ama dhamaadkii magaranaysa intaan 20 bilaabay 18 beelahaas buu dhashay cabdi wuxuu dhashay tuulo kamid ah tuulooyinka Boorama oo intiisii hore yaraantiisii hore ku barbaaray
cabdisinimo waxaa la dhashay 18 caruur ah waxaana uu ahaa wiilka afaraad ee reerka ugu weyn cumar deeqsi warfaa waxa uu la dhashay cabdi deeqsi warfaa cabdisinimo waxa uu hadda ku nool yahay deegaanka qardhiile ee ka tirsan degmada Baki ee gobolka Awdal waxa uu isaguna inoo sharaxayaa halkii uu ku dhashay walaalkii cabdisinimo aniga cumar baa la cumar deeqsi warfaa baa cabdisinimo walaalkay isagu wuxuu ku dhashay deegaankan wuxuu ku dhashay Jaaraawr anigu deela bahmahay isku bahmaanahay saddex bahood baan hayno bahbu ahaa qola kalena bahbay ahayd qaar kalena anigu aan ka mid ahay bahmaan bahda loogu yimbo hayso haddaba magaalada Jaaraahorote ee uu ka dhawaajiyay Cumar Deeqsi Warfaa iyo welibana aqoon-yahanada kale ee barnaamijkeena la falanqeynaya maxaad ka taqaanaa magaalada Jaaraahorote waase magaalo caynkeeya waxaa arintaasi naga qabtiraya Suldaan Yuusuf Muuse Gasle oo ka tirsan cuqaasha deegaanka ay ku duugan tahay sooyaalka taariikheed ee berisamaadkii Jaaraahorote waa meesha Soomaaliland ugu da'weyn kolka la yiraahdo beer qodaal meesha koobaad ee beer la qodo ugu horeysay weeyaan halkan waxa kale oo waa meeshii Boorama ka guurtay iyadoo Saylac laga soo qaaday magaalo halkan la keenay Jaaraahorote la dijiyay sanaday tiilay waxa looga raray waxa la yiri meel ballaaran oo dadka u dhaxaysa hal la geeyo magaaladii hal la geeyo qolada galbeedka tiri dalandool bay nagu tahay way nagu dheertahay soo socodkeedu baabuurna ma jirin marka waa loo saan la geeyay halka soo seera ahayd oo banaanayd yaa la soo arko halka la geeyay meeshu waa meel taariikhda Somaliland meeshii iska wax u qabso degta iskuul ku dhisata waa meeshii koobaad ee Somaliland ugu horeysay weeyaan halkan qadiijo iyo dharaar qadiijo balwo waxay ahayd garabkii labaad ee sida fiican ay ugu duushay balwadu waxa iyaduna waqtiyo ku siman xilliyadaasi ay ku dhalatay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal qadiijo balwo waxay ku barbaartay isla magaalada Boorama waxaana ay ahayd gabadhii ugu horeysay ee taariikhda Soomaalida ka soo hor muuqata bilowgii fanka iyo suugaanta casriga ah qadiijo iyo dharaarna waxay ku dhalatay magaalada Boorama qadiijo iyo dharaar oo loo yaqaanay qadiijo balwo oo ahayd gabadha keli haatay ee ku jirtay kooxdii ugu horeysay ee balwa baan ayaa suugaan badan oo isugu jirta heeso iyo murtida kaleba ku lahayd fankii kooxdaasi marka khadiijo balwo lafteedu waxa sameysay balwada heesay qaar bay ku lahayd wax ereyada tiri waxa kamid ahaa wuxuu Ingiriis ka xoogsaday iyo xajkii ma ka saaray xaaji haddaba ka hor inta aynaan gelin bilowgii balwada iyo asaaskii suugaanta casriga ahayd ee Soomaalida waxay isweydiin leh shakhsi caynkeeya buu ahaa cabdisinimo waxay nooga jawaabaya su'aashaasi cimriga iyo caafimaadka Allah uu siyaadiyay shakhsiga kaliya ee hadda ka nool kooxdii balwabaan ama sakan balwabaan waa xildhibaan Sureex Madar Xoosh oo ka mid ahay dhalinyaradii xilligaasi qayb libaax la ka qaadatay faafreebkii balwada waxaan ka aqaanaa Cabdi Deeqsi baa loo jeeday shilmo waxa maamas buuxid shakhsi ahaan qof nuuciib ah magaalada Jabuuti دلول جبتي لجبوها من بعد كان ولا صباح ونطلع بالصودان أنا قرين نهين أنا حمال نهين أنا غجال نهين وهاني في عمها وفي المجال أبوه cabdi deeqsi warfaa cabdisilimo qaybtii hore ee noloshiisa waxa uu ahaa shakhsi ku shaqaysta xirfadiisa dirawalnimo ilaa iyo xilligii mustacmaradii gumaystaha sida uu ka dhawaajinayo cumar deeqsi warfaa oo isaga la dhashay isagoo aan soo gaaray nin weynaaday dirawal ah nin talyaani oo u shaqeeyo kambaniya roosi loo odhan jiray isla markaa in badan buu soo hayaa ninka kursiinteedii wax badan buu ku lahaa sidoo kale cabdisinimo waxa uu dirawal ka ahaa mid ka mid ah baabuurtii ugu horeysay ee ay yeeshaan dadka rayidka xilligii maamulka gumaysiga gaadhigaasina waxaa la ahaan jiray nin lagu magacaabi jiray xaaji xirsi cawaale oo ka mid ahaa ganacsatadii waaweyneyd ee wakhtigaasi sida ay isku raacsan yihiin abwaan geestir iyo aqoon-yahan bashiir sheekh cumar good cabdisilimo wuxuu wadi jiray baabuurkii ugu horeeyay ee geeskan Afrika ka soo dega dirawal buu ahaa
gaadhigaasi marka laga reebo kuwa dawladihii gumaysiga ayna haystay dad shicibi baabuur iibsadaan haddii taariikhda la baaro ama kow ama labuu ka noqonayaa waxa baabuurkaa lahaa xaaji xirsi gaadhigaasuu dirawalka ahaa marka cabdisinimo wuxuu noqday dirawal wuxuu noqday nin oran jiray xaaji xirsi cawaale oo markaasi ahaa nimankii ugu taajirsanaa dhinacaasi waqooyiga ilaa iyo gobolka Ethiopia la yiraahdo kale naga haysto oo wagaasi reserve area inta noqon Soomaalidu lahayd oo wuxuu ninkaasi lahaan jiray kolonyo gawaariya oo magarasa markuu Talyaaniga waddanka soo degay wuxuu siin jiray contractkii askarta Talyaaniga isaga cuntada iyo raashinka iyo saliidda iyo wax walba isaga u keenay markaa ninkaas uu diray wallo ahaa cabdisinimo dowlad muqaadimka halkan uu ku hadlafteeda marka nin waxa muddo kale marka baawur baa ka xabiya ka xumaan jiray marka baqaxarkiisa waxaasuu balwooyahay waxay bareeyay mooyaanay buu odhan jiray balwoodana isaga keenoo lahaa xilligaasi uu dirawalka ahaa cabdisilimo waxa uu ahaa shakhsi si weyn uga dheregsan heesaha iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee ilaa iyo maanta ay Soomaalidu u arkaan hantida dhaqanka ah ee maguuraanka ah waxaa loo aqoonsaday aabbaha fanka Soomaaliyeed sababtoo ah waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee sameeyay qaabka heesaha Soomaaligu maanta uu dhaco isagoo abuuray laxanka iyo habdhaca aasaaska u ah qaaciga iyo qaraamiga caan baxay ee suugaanta Soomaalida cabdi deeqsi warfaa cabdisilimo waxa uu heesaha iyo fanka bilaabay qiyaastii sanadkii 1940kii markaasi oo uu sameeyay heestii ugu horreysay ee balwada oo la aaminsan yahay inay ahaayeen heesihii ugu horreeyay ee fanka Soomaaliyeed ee casriga ah markaasi oo uu cabdisinimo baabuurkiisii ku jabay inta u dhaxaysa deegaanka la yiraahdo Jiri iyo Waraabood oo ku taala dacalka hoose ee banka Giriyaad waqtigaasi ayuu sameeyay erayada heestii ugu horreysay oo ku luqeeyay isagoo ka shaqeynayay baabuurkiisii xumaaday 1940kii cabdisilimo oo dirawala ayaa gaadhigii kaga xumaaday banka Giriyaad meesha la yiraahdo Jiri waa dhul bannaan waa kulayl geed la harsado male saylac buu ka soo baxay booramuu raran yahay halkaasay ka bilaabatay balwadu dabta cabdisinimo oo waxa soo dhanka dharagsan ayaa isagoo gaadhigiisii wata maalmaha kamida gaadhigii kaga jabay banka Giriyaad isagoo soo socda dhinacan buu banka Giriyaad kaga jabay jeclaa dabta Facebook meeshii kaga jabay ayaa gaadhigii soo dhaaftay midoo bab xidha waxa sanaga jabay wixii bedel qalabkii ma hayaan markaas wax noo dhiba kale qaad bi qaar u dhiibaan qaar biyeysiiyaan qaar caanaysiya marka mid walba wuxuu ayay siiyaan sidaa ku fadhiyeen ayaa maganasaayeen cabdisinimo ayuu markaasi talag soo qaatay inankii dirawalkii kirishboogii la socday ninka kirishboogii la socday dalaga siiyay oo nin weyn oo dhowr iyo 60 ayaa dadkan wareysta ku jiray moogtay dalagii siiyay ayaa uu dalagii garaacay iska garaacay soo garaacay ayuu yiri balwoy hoy balwoy waxa ibale yey boorama balwoy markaas oranaya waxa ibaleeyay boorguba boorguba marka waxa weey 1943 marka isagoo music batmay cabdisinimo waxa weey baasha ayuu tumaya markii daba inakii geed baa likal barayo geed baa u garaacaya kaas baydkii ugu horreeyay uu tiriyo ayaa wuxuu ahaa balwoy hoy waxay baleeyay mooyaan balwoy hoy waxay baleeyay baabuur balwoy hoy waxaanu baloobay beerguba balwoy waxay baleeyay mooyaanay
waxaana ugu horrayntiiba sheekadu ay ka bilaabantay jacayl uu cabdisilim oo u qabay gabadh reer saylac ahayd oo lagu magacaabi jiray indhacad markii ay ka soo burqadeen ereyadii ugu horreeyey ee uu ku heeso heestaasi waxaa la yidhaahdaa balwo waxayna noqotay magaca iyo bilowgii suugaanta cusub ee soomaalida iyo kooxdii ugu horraysay ee fannaaniin leh ee kooxda balwo baan balwoy balwoy waxay belayey mooyaanay beergaal iyo boyga looranisay waxaa i belayey balbalay laylay 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 lalalalaylay muncawaley ku dheeraayey afartan maalmood ayay ku qaadatay safarkii boorame iyo saylac oo ugu badnaa berigaasi loo socon jiray 4 maalmood sababta keentay in safarkani uu qaato waqti intaa aan inaba caadi ahayn marka loo eego xilligaasi oo ahayd bilowgii heesaha balwada ayaa waxa mar kale inoo sharaxaya bashiir sheekh cumar good isagoo ku lifaaqaya asbaabihii kale ee soo wajahay waqtigaasi waxay u dhaxeen boorame iyo saylac 40 habeen waayo meel bay fadhiistaan oo ku tuntaan markaasay meel ka fadhiistaan oo ku tuntaan 40 habeen ayay u dhaxeen xaajigii baa loo sheegay ninkii uu bidayma booay war ninkii gaadhigi maxaa ku dhacay gaadhigi hebel caynka ninkaas de mooyaan inuu jabay baa la boodaya markii dambe wuxuu ogaaday sheekadii runta ahayd uu fadhishay meesha gaadhigu kaga jabay waxaa la odhan jiray waraabood dad garanayaa jira laga yaabaa ka fadhiya waxay markay sii socdeen iga sheekeynay waxa weeye 154 miles bay isku jiraan hargeysa iyo waxaan jira boorbe iyo zaylac waa 104 mayl bay isku jiraan waxay 3 habeen waxay u hoydeen meesha la yiraahdo waraabood 12 habeen waxay u hoydeen caasha caddo 8 cisho waxay u hoydeen meel cross section oo gaarisa la yiraahdo gaarisa roads la yiraahdo habeen waxay u hoydeen laabta maroxda 4 cisho waxay u hoydeen meel la yiraahdo lagu magacaabo geedrawo walkii uu ku tiriyay bagarasa balwada ku dhalatay saasay dhowr habeen waxay u hoydeen laba habeen waxay u hoydeen cabdilqaadir tulada cabdilqaadir saasay wixii oo dhan ku qaateen cabdi deeqsi warfaa cabdisilimo waxa uu ku caan baxay oo dadkii wakhtigaasi joogay ay si fiican ugu yaqaaneen tin dheer oo ka mid ahayd timaha madaxiisa taasi oo aanu goyn jirin xataa marka uu xiidhanayo timaha tintaasi oo la aaminsan yahay inuu gacantiisa ku hayn jiray mar kasta oo uu alifayo heesaha ama gabayada arrintaasi waxaa ka markhaati kacaya cumar deeqsi warfaa shoodhe cabdisilimo oo waayo u soo joogay mararka qaar uu walaalkii wax curinayo isagoo gacanta ku qabanaya tintiisii dheerayd markaa tin wuxuu lahaa walaalkii alla arxamo halkaa wuxuu ku lahaa tin dheer oo intaa leeg oon la xiirin sidaa buu soo dayn jiray markuu fikre wuxuu caado u lahaa tin dheer buu lahaa cabdisilimo deeqsi markuu xallifayo tinkaasu saa u qaban jiray cabdisilimo tin buu lahaan jiray aanu xataa marka la tagayo raislaha aanu goyn jirin uu qaban jiray marka tinkaasi inspiration buu ahaa oo ku gabadho marada markuu hees tirinayo ayuu tigaa qabsan jiray moogta uu ku hees jiray anna sidii baan dhabaanti ku helay anoo taa cabdilaahi qarshiba aan ogeyn timaha madaxa tinkaan u jeclahay ee aan hadba taabtabaa tahay timaha madaxayga tinkaan u jeclaa in hadba taabto baa tahay timaha madaxayga taanu jecle ee aan hadba balwoy balwoy waxay belayey mooyaanay beergaal iyo boyga looranisay waxaa i belayey balbalay laylay 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 lalalalaylay muncawaley ku dheeraayey